بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبرنا ويدينتنا what is a labor union أما أورك شقالها labor union أما أورك شقالها وحنكو قيحي كرنا إنو يهي أورور أي سميستان شقالها كشقيا شركة أما ورشد ujeedada ugu weyn ee ururkan shaqaalaha waa inuu ilaaliyo xuquuqda iyo danaha xubnaha ururka kuwaas oo ah shaqaalaha. Haddaba ururkan waxa uu ka caawiyaa shaqaalaha inay helaan mushaar fiican, waxaana intaas sii dheer inay ku dadaalaan in jawiga shaqada uu noqdo mid aamin ah ama safe. Sidoo kale waxa ay ka shaqeeyaan wax waliba oo dan ugu jirta shaqaalaha. Si aan iskula fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan. aan dhahno shaqaalaha warshad waxa uu mid waliba ka cabanaya mushaar yari iyo inay ku howlgalaan mashiino aanan aamin ahayn ama khatar ah. Haddii hal shaqaale keli ah uu cabasho geeyo, laga yaabee in madaxda shirkadda aanay dhegeysan. Laakiin haddii dhammaan shaqaalaha ay midoobaan oo ay samaystaan urur shaqaale, waxay awoodaan inay codkooda mideeyaan, waxayna oran karaan waxaan rabnaa mushaar dheeraad ah iyo mashiino aamin ah, haddii kale shaqada waan joojinaynaa. Markaas madaxda shirkadda way dhegeysanayaan, waxayna u badan tahay in wax laga bedelo arrimaha ay shaqaalaha ka cabanayaan. Waxaana gaarsiiyey in la dhegeysto waa inay midoobeen oo ay hal cod ku wada hadleen. Gunaanad, ururka shaqaalaha waa koox shaqaale ah oo isku xiran, waxa ayna ku midoobeen inay wanaajiyaan shaqadooda iyo inay ilaashadaan xuquuqdooda. Haddaba marka ay wadajir u hadlaan, waxa ay leeyihiin awood ka badan haddii mid kasta keligiis u hadlo, waayo wadajir ayay gacmo wax ku qabtaan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.